madaxweyne hore dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kulan la qaatay wakiilka ka socda beesha caalamka howlgalla ka dhan ah al-shabaab oo laga fuliyay deegaano ka tirsan Jubbada Hoose cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo qarax lagu eegtay duleedka magaalada Baydhabo dibaddana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka oo sheegay markaas in la aqbali karin diidmada uga imaatay dalka Mexico soo gudbinta warkan waxaa idin suura geliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. markale ku soo dhawaada dhageystayaal warka barqanimo ee warbaahinta Hiiraan waxaad la socodsiin doonaa anigu Cabdiraxmaan Axmed Maskaro haddii aan ku bilaabo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax culus oo markaasi xalay lagu eegtay cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya markaasi duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka ku meel gaarka ah ee markaasi koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo kaas oo markaasi geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa si gaar ah loola eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo ku socdaalayay banaanka magaalada waxaana soo gaaray qasaare kala duwan wararka ayaa sheegaya in qaraxu ahaa miino oo markaasi halaalay mid ka mid ah kolonyada ay wateen ciidamada waxaana dhintay laba askari halka ay dhaawacmeen kuwa kale sidoo kale waxaa burbur xooggan soo gaaray baabuur la qarxiyay markaasi ay wateen ciidamada Itoobiya ee weerarka lagu eegtay duleedka magaalada Baydhabo kuwaas oo markii dambe isaga dhaqaaqay meesha xaaladda ayaa saaka mid degan mana jirto markaasi wax hadal ah oo ka soo baxay koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha Itoobiya ee fariisinka ku leh markaasi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dhinaca kale markaasi kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan sida ay sheegayaan ila kala duwan oo ka soo baxaya markaasi waxaana shaacisay in qasaaro xoog leh markaas halkaasi ka dhacay ammaanka magaalada Baydhabo ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid markaasi degan waxaase inta badan weeraro markaasi iyo dagaallo ay ka dhacaan duleedka magaalada Baydhabo oo markaasi xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed dhawaan ayay ahayd markii markaasi maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar culus ku soo qaadeen deegaanka Burujeed oo markaasi u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo deegaanka markaasi Dhuunanay ee gobolka Bay halkaas oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed dagaallo xooggan oo halkaasi ka dhacay kadibna ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay ku guuleysteen dagaalkaasi dhanka kale haddii aynu eegno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya markaasi Rigad isagoona markaasi kulankan diiradda lagu saaray arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya iyo sida looga baahan yahay in la horumariyo hanaanka dowladda markaasi iyo dowlad dhiska Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa u mahad celiyay dowladda Mareykanka taageerada joogtada ah ee Soomaaliya ay siiso dhinacyada ammaanka la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo sidoo kale gargaarka bini'aadantinimada waxaana kulamada markaasi kala duwan kula yeeshay magaalada Muqdisho safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ambassador Richard Riley iyagoona kulankooda markaasi diiradda ku saaray xiriirka ee markaasi taariikhiga ah ee labada dal xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan amniga siyaasadda iyo sida ay muhiim u tahay horumarinta geedi socodka dowlad dhiska iyadoona mar walba saldhig u tahay markaasi xasiloonida siyaasadda ayuu Sheekh Shariif Sheekh Axmed kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo midnimada iyo madaxda Soomaalida ee ka hor markaasi doorashooyinka muhiimka ah ee sanadka soo socda la filayo inay ka dhacaan dalka dowladda Mareykanka ayaa xoojinaysa markaasi taageerada ay siinayso dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan markaasi caqabado badan oo dhanka siyaasadda ay ka taagan yihiin muddooyinkii la soo dhaafay oo markaasi ugu horeeyaan doorashada la isku hayo dhanka kale haddii aynu eegno ciidamada kumaandooska danab oo garab ka helaya boolis markaasi sida gaarka u tababaran ee Jubbada Hoose ayaa howlgal markaasi qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab howlgalkan ayaa ahaa kuwa ciidamada iyo markaasi oo iskaashanaya ay ku beegsadeen kooxda markaasi isla markaana ay ku burburiyeen xarumo iyo goobo ay kasoo abaabuli jireen weerarada iyo falalka amni darri sida lagu sheegay war ka soo baxay ciidamada markaasi danab saraakiisha hogaaminaysay howlgalka markaasi laga sameeyay deegaanada ka tirsan Jubbada Hoose ee hoostaga Kismaayo ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka howlgalku uu ahaayeen xaqiijinta amniga iyo xasiloonida deegaanada Jubbaland saraakiisha ayaa sidoo kale shacabka ku nool deegaanada maamul goboleedka Jubbaland ugu baaqay in ciidamada kala shaqeeyaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanada maamul goboleedka Jubbaland gobolka Jubbada Hoose iyo gobolada kale ee maamulkaasi ayaa ka mid ah
meelaha ay al-shabaab markaasi joogaan waxaana halkaasi marar badan ka dhaca markaasi dagaallo iyo duqeymo khasaare xoog leh markaasi ka geysta halkaasi. dhanka kale haddii aynu eegno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu arag ka muujiyay markaasi xubno markaasi ka mid ah Mareykanka oo la sheegay in markaasi dowladda Mexico oo markaasi la sheegay in ay ka qayb qaadanayso markaasi ay diiday war in la geeyo qayb ka mid ah maxaabiista markaasi dalka Mareykanka oo ay iska diiday waddanka Mexico ayna ku celisay Mareykanka iyadoo sheegtay markaasi inuusan ahayn go'aankaasi mid la aqbali karo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhigiisa Mexico markaasi ay diiday dalab uu markaasi u jeediyay oo ahaa in ciidamo Mareykan ah loo diro Mexico si loola dagaalamo kooxaha daroogada. Trump ayaa sheegay in daroogadan ay wax ka qabashada dembiyada daroogada ee Mexico isagoo tilmaamay in markaasi aad ugu farxi lahaayeen haddii Mexico ay aqbali lahayd caawinta loo soo jeediyay. haddii Mexico ay rabto caawinta la dagaalanka maandooriyaha waxaa markaasi nagu sharfi lahayd inaan galno oo aan howlgal ka sameyno waxaana u sheegaynaa inay taasi tahay waxyaabaha ugu habboon ee markaasi lagula dagaalami karo daroogada ayuu yidhi Trump. waxa uu intaasi ku daray in kooxaha daroogada ay halis weyn ku yihiin Mareykanka isagoona tilmaamay in ay markaasi isku dayayaan inay ururiyaan markaasi waa inay burburiyaan dalkaasi. hadalkan ka yimid kadib markii madaxweynaha Mexico ay sabtidii sheegtay in madaxweynaha markaasi madaxbanaanida dalkooda aysan iib ahayn taas oo kaga jawaabaysay hadallo uu horey u sheegay Trump. madaxweynaha Mexico ayaa si cad u muujisay in Mexico aysan diyaar u ahayn in ciidamo Mareykan ah la keeno gudaha waddankaasi iyadoona sheegtay in dalkeeda iyo ammaankeeda ay ku sugan tahay. sidoo kale Trump ayaa qorsheynayay in markaasi lagu daabulo qaar ka mid ah markaasi dalka ajaanibta ah ee ku sugan gudaha Mareykanka sidoo kalena Mexico iska diiday dalabkaasi. guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabeynaa warka barqanimo ee warbaahintiina uu idila socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Axmed Maskaro waxaa farsameynaya Cabdi Yare intaas ayaan ku baasantiin. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhagayso idaacadda Hiranweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net. Radio Hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxa uu wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiranweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barka internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com. Al-Rahma Specialist Hospital. guud ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay ha yeeshee aqoon iyo adeeg caafimaad baa inta la isku dhaafay. Isbitaalka takhasusiga Al-Rahma intii aad u aragto adeegii heshayba aqbasho ammaantay see weeye. agabkii u dambeeyay dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareyso isbitaalka Al-Rahma ummaday ku macruuf ah saasaa la kofaday ish calaatayadiisa qalabkiisu ammaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kaleeto. isbitaalka Al-Rahma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaasi oo loo fidiyay tiro badan oo bulshada kamid ah waxaana ka howlgala